maxaabiis hesha hub ayaa ilaalada xabsiga kula dhex dagaalamay 10 Agoosto ee sanadkan aan ku guda jirno. dhimashada guud waxay noqotay 19 ruux oo 15 yihiin maxaabiis xukun sugayaal ah iyo 4 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta. risaasta waxaa dhaawac ka soo gaaray 7 ka mid ah xukun sugayaasha aalmeetada ugu jira xabsiga dhexe iyo 1 askari. waxaana warbaahintu u xaqiijiyay Cabdiqani Maxamed Qalaf afayeenka ciidanka asluubta oo warbaahinta la hadlay. maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari, waxaa dhaawaca 15 maxbuus ee ku dhintay xabsiga dhexe waxay u kala xukunsanaayeen 9 maxbuus oo xabsi daa'in ah, 3 maxbuus oo min 15 sano xabsi ciidan ah, 1 maxbuus oo 8 sano xabsi ciidan ah, 1 maxbuus oo 6 sano xabsi ciidan ah, 1 maxbuus oo caasi waalidiin ah. magacyadooda kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Cabdisalaan Maxamed oo loo haysto asagoo nise ka tirsan inuu al-shabaab la shaqeynayay, Dr. Raago ka tirsan Daesh iyo Gamadiid oo ka tirsanaa kooxda Ilka Case. 12 Agoosto sanadii 2017 qarax ayaa ka dhacay xabsiga dhexe, baaristiisana aamusnaan ayay ku dhamaatay. waa weerarkii labaad ee qalqalgeliya nafafta maxaabiista aan isdifaaci karin, balse xaqiiqda ayaa taa ka fog wararka hor u dhacay warbaahinada lagu baahiya, taas oo khasaaruhu ka badnaa karo tirada hadda la sheegay. taliyaha ciidanka asluubta Generaal Mahad Cabdiraxmaan oo markii lagu qiimeeyo cilmi nafsiga uu muuqday qof walwalsan haddana wax qarinayo, dib u milicso waraysiga uu siiyay warbaahinta qaranka hadalkiisa. askari waardiye ka ahaa gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen. nasiib wanaag si fudud qoriga markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay, waxay bilaabeen dagaalka dhacay waa noocaas. baxsadka maxaabiis badan ayaa jiri karo, haddana hal qof ayaa lagu soo koobay. Mubaarak Ibraahim Ciidle oo 10 sano xabsi ciidan ku xukunaa ayaa ka baxsaday xabsiga dhexe asagoo bistoolad ku hubaysan, wuxuuna dilay 2 qof oo mid shacab ahaa midna mootaale yahay. in badan ayaa ku warantay inuu baxsaday macallinkii dilaaga ahaa Ilka Case, taasoo dad badan baqasho ku abuurtay maadaama sawiradiisu ay noqdeen farshaxan wax lagu cambiro gaar ahaan social media-ha. xidigan aalmiitada ugu jira dilka toogasho waxaana cabsidaa muujiyay Cabdicays Afrika oo ah wariyaha gaarka ee barnaamijka Gungaar ee ka baxa TV-ga qaranka, taasoo lagu wareysto eedeysanayaasha al-shabaab. wuxuuna Facebook-giisa ku qoray xilli oo ra'ligiisa ka dhiibanayay bartiisa gaarka ee Facebook-ga. mas-uuliyaddu waa inaad aqbashaa qalad ka dhacay, laakiin ma shaqaynayso jahwareerin. banbooyinkii aan maqlayna xaggee laga keenay haddaad inkirtay bastoolada. #isla xisaabtan. miyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Garyaqaan Shuute ayaa taladii ugu jeediyay ciidanka asluubta la qaadan. ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u sameeynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii, uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin, haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahe wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay fikirka argagixisada lagu kabciyo oo xabsiga dhexe oo tuhun laga qabay hanaankay u shaqeeyaan ciidanka asluubta gaar ahaan qaybta ilaalada xabsiyada iyo saraakiisha ku shaqo leh xabsiga dhexe inay musuqmaasuq iyo hanaanka siyaasadeed dalka ku milmeen. waxaa jira su'aal isweydiin ah, yaa hubiyey inaysan weligood ka qayb noqon al-shabaab ama qabiilada dirirtooda, taasoo dhiig qabiil qaadi karo si uu badbaadiyo in adeerkii taasoo Soomaalida ka ah ammaan nin tulkiisa difaacay ama badbaadiyay qof ay isku reer yihiin maalin uu ku sugnaa xaalad adag. wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ee shaqada ku leh waxaa hor yaala dhowr su'aalood. weerarka inta uusan dhicin saraakiishii ku qorneed riboodka saacadihii ugu dambeeyay ee maxaabiista iyo xabsiga ayaa lagu wareejiyay. ilaalada xabsiga ee maalintaas shaqada lahaa baaris dhab ah ma lagu sameyn doonaa. ma jiraan hanaan wax duubo oo xabsiga lagu baari karo. weerarka kadib ciidanka gaarka ee la wareegay xabsiga ma jiraan caddeyn ay heleen. qaybta maamulka shaqada ee xabsiga dhexe xogtooda yaa baaris ku sameyn doono. laayaasha xukun sugaya ciidanka asluubta hanaan lacag isdhaafsashaa inay jirto baarista qayb ma ka tahay. yaa leh mas-uuliyadda si gaara. meeqa maxbuus ayaa xabsiga ka baxsatay. baarista weerarka saraakiishii loo xilsaaray si dhab ah waajibaadkooda ma u sameyn doonaan.
mise baarista waxay noqon doontaa maalmo kooban oo halkeedu lagu tago mise wax ayaa ka baran doonaa hay-adaha dowladda ee booliska iyo xeer ilaalinta baarista weerarkan asigoo dhammaystiran malala wadaagi doonaa shacabka waa maxamuud milaano iyo luul shaalo oo idin leh nabadgelyo